kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka usbuuca iyo Soomaaliya oo usbuuc waliba aad ka daawataan channelka Xusuus u Joog Media. Qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xanuunka coronavirus oo usbuucan kiisaskii ugu horeeyay lagu arkay wadamada dhacabariga Afrika iyo Geeska. Puntland oo lagu soo gabagabeeyay shirka wada tashiga ee maamulkaasi iyada oo warmurtiyeed laga soo saaray. qodobada kale aad daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo usbuucan safar degdeg ah ugu ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. dawladda Soomaaliyana waxa ay joojisay duulimaadyada caalamiga ah iyada oo la fasaxay dhammaan goobaha waxbarashada dalka. ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanaya ayaa al-shabaab waxa isbuucan kala wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliyihii sirdoonka gobolka Sool oo isbuucan lagu dilay ee magaalada Laascaanood ee gobolkaasi ayaa sidoo kale daawan doontaan. qodobada kale ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxa ku jiri doona taliska booliska Soomaaliya oo shaaciyay in la xiray ee xarunta dambi baarista ee CID-da. gabar 12 sano jir ahaydna waxa isbuucan lagu dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. qodobada kale ee barnaamijka usbuuca iyo Soomaaliya aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha ee maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe oo isbuucan dalacsiyay taliye sheegay in uu diiday in uu xiriir la sameeyo dawladda federaalka Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka ee ku soo dhawaada mar kale saaxiibayaal isagoo intaas ka faahfaahsan. waxaan ku bilaabayaa xanuunka coronavirus ayaa isbuucan kiisaskii ugu horeeyay waxa lagu arkay wadamada dhacabariga Afrika iyo Geeska. xanuunka coronavirus oo dunida faraba'an ku haya ayaa kiisaskii ugu horeeyay laga helay wadamo ku yaala bariga Afrika iyo waliba sidoo kale Geeska. wadamada Kenya, Ethiopia, Sudan, Nigeria iyo Soomaaliya ayaa laga diiwaangeliyay kiisaskii ugu horeeyay ee caabuqa coronavirus ee loo yaqaan COVID-19 iyagoo wadamadaasi ay ku dhawaaqeen gabi ahaanba inay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ah oo uga imaanaya ee dadka ka imaanaya wadamada caalamka oo xanuunka u saameeyay. si lamida wadamadaas ayaa bilaabay saameynta goobo lagu karantiilo dadka uu soo ridanayo xanuunka iyadoo bulshada lagu wargeliyay maalmo ay ku sugnaadaan guryahooda inta laga qiimeynayo xaaladda guud ee xanuunka. waa hagaag Puntland waxa lagu soo gabagabeeyay shirkii wada tashiga Puntland iyada oo warmurtiyeedna laga soo saaray. magaalada Garowe waxaa 15kii bishii 3aad 2020 ka furmay shirka wada tashiga Puntland kaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa maamulkaasi, dhaqan, salaadiin iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Puntland. waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano labada gole ee baarlamaanka federaalka ku matala Puntland iyo madaxdii hore sida senator Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo soo noqday madaxweynayaashii hore ee maamulkaasi. waxaana ka mid ahaa marti sharaftii kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad. shirka oo socday 2 maalin ayaa laga soo saaray warmurtiyeed kaas oo ugu waaweynayeen in arrimaha dastuurka dib loogu dhigo dawladda soo socota ee 2020-2021. in doorasho qof iyo cod ah aanay ka dhici karin sanadkan lana aqbali karin waqti kordhin ee ku yimaada hay'adaha dastuurka ah ee dawladda federaalka. 3 in Puntland ay qaadacayso natiijada haddii aanay qayb ka noqon wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland. 4 in dhammaan saamilayda siyaasadda ee isu yimaadaan oo laga tashto doorashada 2020-2021 ee dawlad goboleedka Puntland ay kaalin ka qaadan doonto. dawladda Soomaaliyana waxa ay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah iyada oo la fasaxay dhammaan goobaha waxbarashada ee dalka. kadib kulan degdeg ah oo ay yeesheen xubnaha ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa lagu joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee ka yimaada ee Soomaaliya uga yimaada dibadda iyo waliba sidoo kale kuwa ka baxa gudaha Soomaaliya. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in si looga digtoonaado cudurka coronavirus la joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee ka yimaada dalka laga bilaabo 18 bishan muddo 15 maalin ah. waa hagaag daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka usbuuca iyo Soomaaliya ee channelka Xusuus u Joog Media. qodobada kale haddii aynu sii fiirino ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa isbuucan safar degdeg ah waxa uu uga baxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
safarka ra'iisul wasaaraha oo ahaa safar aan horey loo sii shaacin ayaa waxa in ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay kulamo ku yeelan doonaan magaalada Addis Ababa madaxda ugu sareysa dalkaasi. dhinaca kalena ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa al-shabaab waxay kala wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa AMISOM ayaa la wareegay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin kooxda al-shabaab sida ay xaqiijisay warbaahinta dawladda. ciidamada dawladda ayaa howlgalkooda bilaabay maalintii Axadda iyaga oo dhaqdhaqaaqyo ka waday ee degmada Awdhigle ee isla gobolkaasi. ciidamada ayaa si taxadar leh ku socda iyaga oo mararka qaar gaadiidka ka degaya si ay u hubiyaan miinooyinka dhulka lagu aaso oo ay al-shabaab u isticmaalaan in ay ku qarxiyaan ciidanka kuna hor istaagaan socdaalkooda. qaybihii dhexe ee barnaamijka usbuuca iyo Soomaaliya ayaa daawanaysaan daawadayaal. markaana taliyihii sirdoonka gobolka Sool ayaa waxaa lagu dilay magaalada Laascaanood ee gobolkaasi. waxaa magaalada Laascaanood lagu dilay taliyihii sirdoonka gobolka Sool ee maamulka Somaliland. taliyaha ayaana lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir Guhaad Xasan. taliyaha ayaa la sheegay inay toogteen qolyo hubaysnaa kuwaas oo bartamaha magaalada ku dilay. taliyahan ayaa la sheegay inuu ahaa taliyihii gacanta ku hayay kiiskii lagu dilay gudoomiyihii maxkamadda sare ee gobolka Sool oo qarax loogu xiray gaarigiisa u geeriyooday. madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay dilka taliyaha ayaa dhammaan uga tacsiyay bulshada iyo qaraabadii uu ka baxay isaga oo sheegay in raggii dilay taliye Guhaad ay yihiin cadow ku soo maqan Somaliland sida uu hadalka u dhigay. markaana haddii aynu aadno dhinacaas iyo maamulka Galmudug, gabar 11 sano jir ahayd ayaa lagu jir dilay duleedka magaalada Dhuusamareeb waxaana jirdilka loo geystay gabadhaasi sababtay in ay ugu dambeyntii geeriyooto. taliska booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu ka hadlay dhacdo aad u xanuun badan oo ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Jiicaloosin oo ku taala duleedka magaalada Dhuusamareeb. dhacdadaas oo gabar yar jirdil loogu geystay deegaankaasi ay u geeriyootay. taliyaha booliska degmada Dhuusamareeb Dhamme Burhaan Axmed Rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baaritaano hordhaca oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in gabadha qaybo ka mid ah jirkeeda uu go'ay. waxaana tilmaamay in gabadha geeriyootay hooyadeed iyo nin gabadha adeer u ahaa ay falkaas u soo qabteen isla marhaantaana lagu tuhmayo in iyagu ay ka dambeeyeen dilka gabadhaasi. gabadha la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Ikraan Mira Xaashi oo da'deeda lagu sheegay 11 sano jir. waxaana taliska booliska Dhuusamareeb ay sheegeen in kiiskan ay uga soo hari doonaan ilaa iyo sharciga. dhanka kale aabaha dhalay gabadha ayaa taliska booliska uga mahad celiyay sida ay baaritaanka ugu sameeyeen dhibka loo geystay gabadhiisa. waxa uu cod dheer ku sheegay in uu u baahan yahay cadaalad inay hesho gabadhiisa. taliska booliska Soomaaliya ayaa waxay shaaciyeen in la xiray xarunta dambi baarista ee CID-da. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in la xirayo xarunta hay'adda dambi baarista ee CID-da si looga hortago faafidda cudurka coronavirus oo qofkii ugu horeeyay laga helay magaalada Muqdisho kaasi oo ay dawladdu karantiishay. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen Axmed oo war qoraal ah ku soo qortay barteeda Facebook ayaa waxay ku sheegtay in xarumaha faraha ee CID-da la xirayo taariikhdu markay tahay 19 bisha 3 sanadka 2020. sidoo kale Zakiya ayaa sheegtay in xaruntaas ay xirnaan doonto muddo 15 maalin ah iyadoo shacabka Soomaaliyeed ku wargelisay in wixii markaasi ka dambeeya ay xiran tahay xarunta CID-da. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isbuucan dalacsiiyay taliye sheegay in uu diiday in uu xiriir la sameeyo dawladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa isniintii taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee degmada Afmadow Gaashaanle Mahad Islaam u dalacsiiyay darajada Gaashaanle dhexe. madaxweynaha oo kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidamada daraawiishta ee ku sugan degmada Afmadow ayaa uga mahad celiyay shaqada adag ee ay u hayaan shacabka iyo nabadgelyada ay deegaanka ku soo dabaaleen. dhowaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose uu sheegay in uu diiday qorshe dawladdu doonaysay in ciidamada uu hogaamiyo ku soo wareejiyaan gacanta dawladda
federaalka iyadoo la siinayo lacag iyo weliba sidoo kale ballanqaadyo kalena loo sameynayo sida uu ku sheegay muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada. waa hagaag daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka usbuuca iyo Soomaaliya oo aad ka daawanayseen channelka Xusuus Ujoog Media. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Cabdullaahi Maxamed. waxaa soo diyaariyey saaxiibkay Dalmar Cabduqaadir Daacad. tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga, sidaas iyo nabadgelyo. halkani waa channelka Xusuus Ujoog Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro, sidoo kalena la wadaag muuqaalkan saaxiibada kale.